الحمد لله إلهي هو معانا يوسيي الله إيدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو أوه رئيسة إلهي أيان ما هذه شكر وعدنا يا مركضنا هايو أيان ودعينا يا إلا أغانم يوسو كريسي مرك إلهي جان فدوس حكو بشاريو هني إيجا ديغو أولاده باريو وحن هلكن ما هذا وعدنا يا أبتي محمد دماشي محمود عثمان ولا شيء هذا حسن يدمان دتك جدها يدبدي يقصد عي سيجارنا أيام ربا إن المهدو عليو كاهن سلمى داقو يا محمود أو سوق الشيء حفظ المكان وسبعنا thank you أنا مركن شقة معلمات عن دوحتي قرشهيجو ما هين إن اللعب لي يكرديو ما قاعد لي يالو أما مدحد استوسو waxaan rabay inaan ilmaha soo saaro oo aan waqti geliyo si gaarna ula socdo waxbarashadooda si ay mustaqbalkooda u gaaraan maadaama aan wadankan ku dhashay kuna koray waxay la qurux badnaatay inaan tusaale u noqdo ilmaha loo wacay wallahi hana igu xanaaqana aniga man waan ahay don't worry and waxyaabaha la ii doortay inaan noqdo Minnesota Teacher of the Year 2020 ama macalimada ugu sareysa Minnesota Sanadkan waxay tahay daacadnimada aan u shaqeeyo iyo daacadnimada aan u qabo inaan ilmaha wax ku baro waxaan rabaa inaan tuso ilmaha Soomaaliyeed inay ku faanaan diintooda iyo dhaqankooda inaynu ku faanaan luqadooda ilmahana aan Soomaali ahayn waxaan ku xushmeeyaa diintooda iyo dhaqankooda taasina ayaa ah macalimada maadaama la iga dhigay Minnesota Teacher of the Year 2020 hiigsigaygu wuxuu yahay macallimiinta madowga in la badiyo siday caruurteenu u arkaan dadka u eg inay wax bari karaan niyadana loo dhiso waxa looga baahan yahay waalidiinta Soomaaliyeed inay adkeeyaan midnimada si ilmahoodana tusaale ugu noqdaan birito dhalinyaradeedana waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo inaan ku dhaho dadkeena wax u qabta magac iyo sumcadna u soo hooyaan siday u arkaan ani inaan tusaale u ahay iyagana inay wax isku qaban karaan wax barta aan barwaaqo gaarna let's learn so we can all be successful together I am so appreciative to all of you for celebrating educators, not just me, but all the educators in the room and the work that we do. We do it selflessly, and I'm honored to be your 2020 Minnesota Teacher of the Year. I think this year, while it's been unprecedented, has shown us that there is work to be done in every American sector, and particularly in the education sector. COVID-19 exacerbated many of the inequities in our communities, and especially our communities of color that we were facing before. Now more than ever, we need equitable and anti-racist leaders who are doing the work because it matters, and there are many in the room tonight. I'm going into my 9th year of teaching, and while there's so much uncertainty with back to school, I know our kids deserve quality and empowering learning no matter what. My goals as your 2020 Minnesota Teacher of the Year is to advocate for the support and retention of teachers of color, amplify voices of marginalized communities, and inspire youth to be active contributors in their communities. I am so honored to be here tonight. I thank you for your love and support. I've only been in Minnesota 3 years, but I feel like I found my family. I feel welcomed, and I feel appreciated, and I'm thankful to all of you for that. Thank you.